عليكم وأنيقا إيو مركالي خدري نفتادا. Welcome back to خدري نفتادا. أصحابتو سو دوادا إيقرا لنخذ ماداما فيديو وانيقا لصوداهي إن شاء الله وحان رجين دونا مانتا إنا ديغا فائدان وحان بران دونا سيدا لو سميستو body scrub. هاد سيدا أجيدان وحان هالكان كو هايستا ميزان. waxaa kale intuu rabay inaan idin sheego mar waliba aad scrub sameynaysid ama cream aad sameynaysid ama aad sameynaysid nafaqada tinta wax allaala wixii jirka ku baahan oo sidii warshadaha ay u sameeyaan aad u sameynaysid waxa u baahan tahay percentage inaad ku isticmaasho insha Allah waxaan ku baran doonaa fiidiyowyada soo socdo waxyaalaha adkeeyo maanta waxaan baran doonaa body scrub sida loo sameeyo miisaankii ayaan hadda shitay waxaan saaranayaa koobkan waxa ku cabiran lahay waxa u baahanahay emulsifying wax waxa la dhaho hadda ka hor markaan kareemka sameeyay bahalkan wad ila aragteen waa adkeeye waxa u baahanahay 53 gram waxyaalahan waxay taraan oo dhan sida loo isticmaalo wixii laga sameeyay hadii aad waxyaalahaas jeceshahay inaad barato waan isla socon doonaa cashiradeyna sidaan uu ka sii badnaan doonaa si fiican ayaad u fahmi doontaa heer oo waxaad gaaraysaa gacantaada aad wax walba ku sameysato horumar wacan waxaa kaloo halkan ku haystaa satio alcohol wax la dhaho kana wuxuu ka caawinayaa ama maadadan oo ka caawinayaa in markaad bahashan isticmaalayso kareem camal oo noqdo iyo hadhowti markaa qabaysanayso musqusha saxankeeda maadaama aan saliido ku dari doono inuu saliidahaas ku herin meesha waxaan kaloo halkan ku haystaa saliid caday iyo saliida looska aan isku daray waxaa kaloo halkan ku haystaa subagii insha Allah garaamyada dhan iyo waxa u baahan tahay oo dhan hoos ayaa idinku soo qori doonaa si aad u sameysataan hadda waxaan rabaa inaan sameeyo waan isku dhalaalinayaa hadda waxaan rabaa inaan sameeyo biyo kulul ayaan la dhigaa si uu iskugu dhalaalo haddaba sidaad u jeedaan saliidihii way soo dhalaaleen insha Allah hadda waxaan rabaa inaan sameeyo faranjeerka gelinaa faranjeerka qaybta barafka ayaan gelinayaa markuu dhagi rabo laakiin uu iska keenay asaga dhan uu aad baraf u noqonin ayaan soo bixinaa kadibna waan isla socon doonaa insha Allah haddaba sidaad u jeedaan faranjeerka ayaa ka soo bixiyay sidaan ayuu u ekaaday adiga 10 daqiiqo camal ayaan faranjeerka ku hayay afkana waan ka daboolay sababta afka uga daboolay waxay tahay marka faranjeerka geliyo marabin in uu biyo ama wax uu ku dhaco hadda waxaan sameynayaa makiinadan ayaa u baahan tahay waad ku qasaysaa
hadda waxaan rabaa kalarada oo loo isticmaali karo jirka ama makeupka yani safe waaye oo waad u isticmaali kartaa korkaada. kalaradaas ayaan rabaa wax yar inaan ku darsado. kalarka cadaanka waxaan rabaa inaan wax yar ka bedeshto. kalarkaas ayaan kusoo khasanayaa, kadibna waan isla socon doonaa. haddana waxaan ku darayaa insha allah sokortii. waan ku qasayaa sokorta cabirkeedana hoos ayaan igu soo qoraa insha allah, waan isla arkaynaa. haddaba sidaa u jeedaan waa kana alaabteeni. hadda waxaan rabaa inaan ku daro blueberry mirahiisa. blueberry waxaa la dhahaa bahal u eg canabka camal, laakiin canab ma ahan. kolley wadamadana laga helaa. qurux yar iyo wuxuu siinayaa markaa jirka hadhow ku masaajeynaysid wasaqdii maqaarkii dhintay wixii oo dhan nadiif ishcalaa oo kaa dhigaya. waxaabo dukaan dhaxa aado gacantaadii ku ciilin ayaa arrinta maanta maraysaa. waa kaasaahe sababta loo furay Qadari channel waxaa waayebo inaad saan gacantaada ugu baashaasho. waaw iga dheh. hadda waxaan rabaa inaan ku daro maadadii ka dilaysay inay ku dhalato bacteria ama inuu kalarkiisa isbedelo, maadaama oo hadda waxaan biyo oysan ku jirin. waxyaalaha biyahana badanaa u baahnayn in lagu daro. tan waxaa ugu daraya sababta oo ah musqusha ayaa loogu tirigalay inay taalo. markaad isticmaalayso gacantaadu qoyanaa la galay, musqushii biyaheeda ayaa laga yaabaa inay gaaraan. yacni waxyaabo badan oo sababi karo oo inay bacteria ku dhalato. sidaas darteed waxaan ku darsanaynaa maadadii xafidaysay si aysan waxba ugu dhalanin jirkaadana uga faa'iido. maadadii ayaan hadda ku darsanayaa. kadib waxaan kaloo ku darsanayaa muxuu ahay carafta taa adiga jeceshahay. aniga maanta waxaan isticmaalayaa vanilla. waxaan hadda sameynayaa isaga dhan ayaa isdhex gelinaa. body scrub-kan aad u fudud yahay. gurigaada ku samaysan kartaa. sokor, subag allaala subagaa rabto, saliid. waa very simple waaye. muxuu ahaay waxyaalaha oo adkaynayana hadda ka horna waa idin tusi markaa kareemka sameynayay. mar kalena waa idin tusi doonaa. sharaxaadiisa haddaa u baahan tahaan ila soo socodsiiya, waa idin sharaxa waxyaalahay kala qabtaan, sida loo kala isticmaalo. wax walba xaggiina waaye. hadda alaabtan aniga gabar ayaa iga soo dalbatay. dalab ayaan sameynayaa. waa kana bahalkan aan ku shubaayane waa soo nadiifsaday. 99% alcohol ayaa ku nadiifsaday. mar walba aad gadayso inaad ku qorto waaye waxaad ka samaysay, waxaad isticmaashay iyo wax safe ah inaad dadka siiso waaye. marka haddaba saa u jeedaan waa kana waa idin tusayaa sida loo isticmaalaa idin sheegaa. markaad qabaysato saabuun iyo wax allaala waxaad rabto aad isku dhaqdo isnadiifisid, kadib ayaad soo qabsanaysaa scrub-kan gacantaada, jirkaada
wejiga xataa waa uu isticmaali kartaa, laakiin maadaama aan ku daray maado caraf ah, waxaan kugula talin lahay inaadan u isticmaalin wejigaada. saas ayaa jirkaada ugu rugaysaa. haddaba waad ujeedaan markaad marsanayso waxaa fiican sidaas inaad u marsato. maqaarkii dhintay, maqaarkii dhaawac kaa soo gaaray, wax walbo maasha allah. sokortaan iyo alaabtan haddaa isku ogaato way kaa tirmayaan. maadada aan hadaydi idin sheegayay waa tanaa, ma jeedin iyada dhan kareem camal oo noqday. ma dareemaysid xataa sokor inaad jirkaada ku rugaysid, asaga dhanba lotion camal aa umaleysaa. waa kaasaa, ma jeedaa? saas ayuu noqday. insha allah waxaa rajaynayaa inaad ka hesheen. please like, share, subscribe. thank you.